الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح wanaagsan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan rabaa inaan u sheego waxaan joogaa hotel Maida waxa halkan degan madaxda murashaxiinta doorashada 2021 ee madaxweynenimada qaar kamid ah midowga golaha murashaxiinta Soomaaliyeed waxaan halkan u joognay xalay iyo maanta oo dhan qabanqaabada iyo u diyaar garowga banaanbaxa balaaran banaanbaxa nabadeed ee biri inuu ka dhaca ay ahayd taalada daljirka Daasoon arna banaanbaxi waa sidiisii waxba iskama bedelin waxa ku soo kordhay oo kaliya caawa in ay ciidamadii dawladda ay soo weeraraan barxadii banaanbaxa lagu qabanayay hotelkii aan deganayn iyo ereydii oo dhan inay soo weeraraan ay ku soo weerareen baabuurtii qafilneed ee beebaha ahayd ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa nasiib darro weyn in baabuurtii iyo qalabkii iyo hubkii loogu talagalay in lagu la diriiro cadowga al-shabaab goob shacab Soomaaliyeed oo rayada biri inay ku soo bandhigaan ra'yigooda ay rabeen in caawa lagu soo weeraro oo security lagu kala eriyo oo madaxdii lagu handado oo dadkii hordhaca ahaa ee soo hormaraya meesha imaanayay lagu kala eriyo xabada lagu rido sidoo kale hotelkan deganayo waa soo weerartay dawladdu ciidamadeena amniga security hotelka ilaalinayayna waa la soo weeraray qaarna waa la dhaawacay dagaal xunna meesha waa ka dhacay welina meelaha qaarkood weli dagaal xabadii waa ka socdaan dib ayaa la isaga cabiyo waa ka carareen meesha waa ka tageen laakiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno dhaqanka noocaas ah ee dalkan ka bilowday maanta haddii aanay dadka Soomaaliyeed wax iska dhihin oo aanay wax isaga ogaanin oo aanay tallaabo ka qaadin dalkan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee 4 sano la soo dhaafayna sida ogaantay dal ku joogay haddana asagoo xilligiisa dhamaaday inuu haddana dhiig sokeeyo daadiyo u taagan aan leenahay shacabka Soomaaliyeed arintaas arin la aqbali kara maaha waxaan ku baaqayaa banaanbixi waa halkiisi waa meeshiisi waa waqtigiisi saacada la joogo qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho jooga meesha uu joogo inuu ka soo dhaqaaqo oo daljirka Daasoon soo aado baabayaalan keensaday dadkan xabadeynaya meelaha lagu kala cararaya ma aha wax oo gooya xorriyadda dadka inay istaagto ama dadku ay cabsadaan oo ay baqaan sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa waxa caawa ka dhacay daljirka Daasoon iyo hotel Maida waa fool xumo tii ugu xumeed waa weerar lagu soo qaaday ma aha niman madaxa iyo meel banaane waa weerar lagu soo qaaday dawladnimada Soomaaliya dimuqraadiyadda Soomaaliya xurriyadda shakhsiga Soomaaliga ah oo la rabo in hadda loo bilaabo qarniga 21aad dictatoriyad iyo caburis iyo qasab iyo maxaan ku raadayay adoonsi loo bilaabo ay tahay ma aqbali karnaan leenahay dadkana ma aqbali karnaan dadka Soomaaliyeed inay aqbali karin anaga ha muujiyaano ha isku soo baxaano barxadii daljirka Daasoonada noo balana saacada la joogo qof walba meesha joogto inay ka soo dhaqaaqdo ayaan u soo jeedinayaa oo aan isugu wada nimaado daljirka Daasoon hadii aan leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin maanta ayay taagan tahay xurriyadaada maanta hana lahayd celi lahayd ayna ka baxsaneen yeena naga baxsanin xurriyadeena iyo madax banaanideena iyo xuquuqdeena dastuuriga hadii aan leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh